Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Karin iyo Qurxin barnaamijkii caafimaadka. Maanta waxaa idin soo gudbinayaa anigoo ah Roon. Waxaan ka hadli doonaa maanta tonsilka ama quumanka ayaa ka hadli doonaa. Waa quumanka horta aniga wax yar u qaadanaa, laakiin waa halis hadduu qofkii uu ku weynaado wuxuu keeni karaa cudurro badan oo keeni karaa, maybe qofka xitaa inuu dhintaa laga yaabaa. qofka haddana waxaa sababta bacteria, qofkii gacmihii wasaq markuu wixii ku cuno oo gasho bacteriadaas oo gudaha u gasho. haddana the main bacteria oo sababta waxaa la dhahaa Streptococcus pyogenes aa la dhahaa. qofkii markuu haddana waxaas xanuunkaas iyo waxaas isku arko, waxaa la rabaa dhakhtarka inuu la kaashado, inuu dhakhtarka cunugiisa qofka hadduu ku arko inuu ula cararo dhakhtarkii si uu u helo caafimaad mase talo iyo daawo loo siiyo. haddana dhakhtarka qofka asigoo la kaashada daawadiisa cunaa, haddana qofka waxaa la rabaa inuu asiga is caawiyo asigoo sameyn karo biyo qandac inuu qofkii ku luqluqdo, haddana biyihii inuu qandacsado ku luqluqdo, haddana qofkii inuu biyo qandiir inuu sameysto oo cusbo ku darsado way caawinaysaa. idan xanuunka iyo bararka hoos ayay u dhigaysaa. haddana qofkii intaas kadib wuxuu kaloo sameysan karaa inuu shukumaan biyo qandac dhex gashto mise cusbo u mamariyo ayuu dhuunta ku laalaaba karaa. waxay dejinaysaa bararka iyo ay hoos u dhigaysaa. qofka mar walba waxaa fiican caafimaadkiisa inuu ka taxadiro. adigoo daawadaas cunaysid haddana bararka wax dejiyo waa inaa isticmaashaa shukumaanadan. haddana qofka waxaa la rabaa enough rest inuu helo, inuu hurdo fiican oo helo. hurdada muhiim waaye, shay muhiim waa. haddana qofka qolkuu jiifanayo ventilated inuu noqdo waa, amase heatkiisa medium inay noqoto, waa inay saa-id qabo u ahaato lama rabo. haddana qofkii xanuunkii markii sidaas uu kusii bato badanaa waxaa la sameeyaa kan surgery la dhaho tonsillectomy is the best surgery oo qofka markuu tonsilka hayo mise quumanka lagu sameeyo oo qofka caawinayo. laakiin qofkii hadduuna qalinka sameeyo waa in dad waxaa jira ay kusoo laalaabtaan badanaa. laakiin research la sameeyo qofka markuu kan sameeyo badanaa quumanka ma soo laabtaan. waxaa filayaa inaad ka faa'iidaysateen videogan. haddaan ugu cusub tahay subscribe, like, share si aa u ogaatid caafimaad adiga kugu saabsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.